Toddoba arrimood oo haddaad subax walba aad samaysid cayilka kaa ridaayo. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Asxaabi meel walba joogtiin kusoo dhawaada channelka daawanaysiin waa channelkii Dr. Saddam Xuseen. Fadlan ha naga iloobina subscribe, like and share-ka. Balanteenu sidaan horaan aan usoo sheegnay waa 10k. haddii aan 10k aan gaarno haddana balan kale aan dhiganaynaa waqtigaas kadib waan kasii gudbaynaa waxay noqonaysaa 20,000 oo subscriberska laakiin hadda 10k na gaarsiiyo 10,000 oo subscriberska na gaarsiiyo tan waa arkaynaa markaa kadib balantii aan dhigan lahayn hadday 30,000 ay tahay hadday 40,000 ay tahay hadday 20,000 ay tahay kusoo dhawaada meel walba joogtiin channelka daawanaysiin waa channelkii Dr. Saddam Xuseen. Maanta waxaan idin wadaa sida aad hordhaca aad kusoo aragteen 7 arrimood oo subax kasta aad sameynaysid oo cayilka faraha badan ama cayilka badan kaa jaraayo. Cayilka wuxuu sheegayaa ma aragtay in aad BMI-gaaga uu ku darsamayo. haddaad cayilan tahay BMI-gaagan uu ku darsamayo. BMI-gaaga waa maxay? Body mass index wax loo yaqaano. Body mass index-kan wuxuu il saaran yahay waa weight-kaaga, miisaankaaga iyo ma aragtay height-kaaga oo la qiibiyo wixii ka soo baxay waayo. marka BMI-gan waxyaalo badan buu sheegaa. qofka caadiga ah waxaa laga rabaa in uu ku jiro adiga 18 ilaa iyo 25 hataa caadi waaye inuu ku jiro. laakiin wixii 25 ka jiro kor waa cayil oo excess ah. haddii aad ma aragtay cayilkani aad leedahay 7 arrimood aan kuu sheegaya mar walba isku day in aad samaysid. 7 arrimood maxaa ka mid ah? kow waxaa waaye subaxii hore marka aad soo kacdid isku day sidii aad ma aragtay aad ku qabaysan lahayd ma aragtay ama aad ugu qabaysan lahayd biyaha qabowga. biyaha qabowga jirka waxay ka saacideynayaan kow in ma aragtay refreshment ay ku siiyaan. labo waxay ka yareynayaan unugyada oo ma aragtay saliid badan oo xambaarsan ama kaari gareynaya fat cells ka badan bay ka dilayaan. shayga labaad waxaa waaye waxa loo yaqaano shaaha cagaarka ah. shaaha cagaarka afka qalaad waxaa la yiraahdaa green tea-ga. green tea-ga wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan oo ku jiro. wuxuu ka yareynayaa ma aragtay sidaan soo sheegay cayilka badan wuu ka yareynayaa subaxii hore marka aad soo kacdid. green tea-ga waxyaalo badan buu leeyahay faa'iidooyinkiisa sida aan hadda inta aan ku sheegay iyo intaas in ka badan buu leeyahay. shayga saddexaad aad sameyn kartid waxaa waaye subaxii marka aad soo kacdid adigoo afkaaga qabtid 1 litir oo biyo ah ama 3 galaas oo biyo ah adigoo afkaaga qabtid maadaama habeenkii dhan aad soomaneed oo ma aragtay 8 saacadood camal aad soomaneed aan dhahna waqtiga cuntada kugu dambeysay waxaa waaye 2 saac ama 3 saac habeenimo. 2 saac kasoo bilow ilaa iyo subaxii 12 waxaa waaye 8 saacadood aad calooshaada waxba aad cunin marka waad soomaneed habeenkii oo idin 8 subaxii markaad soo kacdid aad biyahaasi 1 litir aad cabtid inta aad quracnin ka hor faa'iidooyin badan bay leeyihiin biyahani. weli haddaad ku darsatid biyahani 1 xabo oo liin ah faa'iido badan bay leedahay. waxay ay ka jirayaan ma aragtay miisaanka badan jirkaaga waxay siinayaan waxa loo yaqaano immune system-kaaga jirkaaga difaaca jirka ay sii dhisayaan. marka way wanaagsan tahay biyahan iyo galaaska liinta ah subaxdii aad cabaysid waa wanaagsan. haddaad liinta aad heli karin ma aragtay galaaska biyaha oo qalalan wuu fiican yahay isaga. shayga afraad waxaa waaye waxa loo yaqaano quraacda. dadka badi waxay aaminsan yihiin haddii ay quracanin in ay ma aragtay ku dhacayo weight-ka inuu ka jarmayo laakiin taa waa qalad. quraacda waa muhiim. quraacda weli aad cunaysid waxa borotiinka ugu badan. quraacdani waa muhiim. quraacda ha ka tagina. quraacda waxay ka saacideynaysaa ma aragtay jirkaaga inay energy ay siiso. sidoo kale quraacda waxaa waaye waxaa la sheegay weli baaritaanka hadda socdo oo ma aragtay research-ka hadda la sameeyo waxaa quraacda iyo cashada qofka muhiim bay u yihiin. sidoo kale shayga lixaad aad sameyn kartid waxaa waaye proteinka in aad cuntid subaxii hore marka aad soo kacdid. proteinka faa'iido badan buu leeyahay. proteinka iyo ma aragtay proteinka waxaa ka mid ah ukunta ma aragtay waxaa ka mid ah malayga ama kalluunka iyo ma aragtay wax walba oo protein ah sida beerka camal wax walba oo protein ah jirkaaga marka aad soo kacdid haddii aad protein aad ku bilowdid a lot of faa'iidooyin badan buu u leeyahay sida ma aragtay cayilka badan uu ka yareynaa because saliidda ayaa keento cayilka. proteinka cayil ma keeno.
labada shay ugu dambeysa waxaa waaye jimicsiga sidiisbu uu fiican yahay. hadda jimicsiga waqtiga ugu fiican waxaa waaye subaxii hore. jimicsiga aad habeenkii aad sameynaysid faa'iido kuguma jirayso maadaama uu jirkaaga waqti badan uu qaadanayo oo hurdagafna uu kugu dhacayo. jirkaaga haddii aad maaragtay exercise-ka aad habeenkii aad hagaajisid waxaa kugu dhacaya jirkaada oo idil inuu alert uu noqdo oo maaragtay qof oo hadda fresh ah aad noqotid. taasna kuma fiicno oo maadaama hurdadii waad hurdagafaysaa. waqtiga ugu fiican oo jimicsiga la hagaajiyo waxaa waaye waqtiga aad soo kacday. jimicsigan wuxuu kaa ilaalinayaa sidoo kale in uu maaragtay hilibkii badanaay uu kaa jarmo. jimicsiga weli aerobicska haddaad hagaajisid wuxuu kaa jarmaayo hilibkii badanaay. shayga ugu dambeeya shayga toddobaad oo ah in aad samaysid isku day in aad maaragtay qoraxda at least at 30 minutes aad heshid oo qoraxda ah. qoraxda waxay bedelaysaa maaragtay fatki badanaay bay kaa yareynaysaa. sidoo kale vitamin D-gana way kaa saacideynaysaa absorptionka oo jirkii uu helayo vitamin D-ga. waad ogtihiin vitamin D-ga videoga kale saan ugu soo hadlay faa'iidooyinkiisa iyo maaragtay sida aad maaragtay lagaa rabo in aad samaysid iyo waxaad ka heli lahayd oo idin. toddobadan arrimood haddaad hagaajisid isbedel badan baad jirkaaga aad ku arkaysaa, gaar ahaan jirkii miisaankii oo kaa yaraado. asxaabi waxaan soo gaarnay gabagabada iyo gunaanidka barnaamijka. fadlan meel walba joogtiin waxaan idinka filayaa subscribe, like, share-ka in aad iga ilowin. waxaan idin rajaynayaa sidaa iyo nabadgelyo.